marwooyin iyo mudanayaal habeen wanaagsan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni Tixmaal waa barnaamijkii gabayga iyo gabayaaga waxaana barnaamijkan nagala qayb galaya abwaankii Yuusuf Cusmaan Cabdille ee ku magac dheeraa Yuusuf Shaacir waxa weeye oo abwaanku yahay kasokow suugaanta isagu tiriyo suugaanta dadka kale oo aad iyo aad u xafidsan yahay waxa Yuusuf uu nagala qayb galay barnaamijyo fara badan oo dadweynuhu aad iyo aad uga heleen maantana waxaan jecelahay in aan bilowno maansadii ama silsiladii caanka ahayd ee Siinleydi waxaan filayaa in aynan u baahnayn in aan macna ka bixiyo oo dadku aad iyo aad u yaqaanaan kullay waxay u baahan tahay in aan ku soo noqono waayo waxa jira dad dhalinyar fara badan oo waqtigan imika soo kortay oo waqtiga ay soo baxday iyo wixii ay ku soo baxday iyo dadkii ka qayb galay iyo cidii curisay iyo waxa keenay iska horimaadka suugaanta la iskaga horyeelay iyo aan garanaynin baa dhici karto oo aan jecelahay bal inaan maanta u macnayno waxa horay u jiray bahay Cabdallo barnaamijka maantana waxaan soo dhaafay filayaa waxa wadajir daadiin doona Cabdullaahi Xaaji yani wadajir daadiinaya waayo Maxamed Cabdullaahi Riir waxa uu kamid ahaa duqeyda si la xusayo iyagu silsiladaas ka qayb galay sidaas daraadeed ayaan maanta u jeclaanay in uu ka mid noqdo dadka barnaamijkaasi dadweynaha nagala soo qayb galay oo aan aad iyo aad ugu mahad celinayno dadweynaha mar walba barnaamijkan Tixmaal nagala soo qayb gala barnaamijkan Siinleyda waxa laga yaabaa in lagu qaldo barnaamijkii hore aan u qabanay sirta erey Cabdallah ka qayb galay waxaan jecelahay Cabdalle in uu ka warramo sida ay ku kala duwan yihiin labada barnaamij waad maadsantahay maxamed waa sida maxamed daahir soo sheegay barnaamijkii sirta ereyga ee la qabtay muxuu ahaa 1991 iyo kan aynu maanta qabanayno waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye barnaamijkaas wuxuu ahaa mid abwaanadii waaweynaa oo Djibouti ku kulmay sida muxuu ahaa Hadraawi Gaariye Cabdi Qays iyo rag kale oo lamid ah ayaa maansooyinkoodii la yiri balku ugu muhiimsanaa laga qabtay intay joogaan sidaas baa iyaga looga qabtay Siinleyduna kamid bahayd laakiin waa laga sheekeeyay un bahayd iyadii oo dhan lama tirin lama tirin maanta inuu fadhinaa inaynu tixii tirino sidaa bayna ku kala duwan yihiin maxamed daahiro Siinleyda haddaan si yar dhex galo waxa jira horta silsilado kale oo ka horeeyay oo u baahan inaan yar xusno silsilad loo oran jiray halac dheeraa jiray maxamedow waxa kale oo jirtay silsiladii gubay caanka ahayd ee dadku wada yaqaanay waxa ku xigtay tii aynu ka soo sheekeynay ee xaydha waxa soo dhan waxay ahaayeen waliba godka la yiraahdo gabayga ay qaadan jireen laakiin Siinleydu waxay kaga duwaneed iyagana waxay qaadatay godka heesta waqtigan imika aan joogno Siinleyda un baa jirta wax silsilado dheer oo saa looga qayb galay oo deeleydiyo iyadana mar kale hadii aan la yiraahdo malaha loo iman doono sidaa bay ku kala duwanaayeen maxamedow waayahay waxa aan jecelahay inaan ka hadalno Siinleyda marka hore Yuusuf Arnobe afiilasha ku xigo Cabdallah ka hadlo cid alle cidii arintaasi wax ka bixin kartay wax ku ogeyd baa ka hadasho halkay ka bilaabantay waxay ka bilaabantay Siinleydu sidaa horta waqtigeey Siinleydu adigu 17-aadkii bay horta bilaabantay bismillaahir rahmaanir rahiim kullayba bisinka lagu bilaabaa wax walba intaanan bilaabin barnaamijka waxaan horta eray mahadnaqa u jeedin lahaa mudanna runtii nimankiina odayaasha ah ee telefisyoonka igu soo dhaweeyay sida Cabdullaahi Xaaji Maxamed Daahir Riiraash iyo guud ahaanba shaqaalaha telefisyoonka iyo agaasimaha Cabdi Caateeye oo runtii isna suurta galiyay fursadan labaad ee mar labaad aan ku imi martiqaadka suurta galiyay iyo guud ahaanba shacabka Djibouti oo labada jeer aan imiba si kalgacal leh igu soo dhaweeyay oo diiran waxay mudan yihiin inaan mahadnaq u jeediyo waxaan garan karaa ilaa Hargeysa inaan soo wadnay oo Cabdalle intaan Hargeysa isku aragnay ilaa intaaba barnaamijyada soo wadnay oo aanu mar walba meel joogtayba aanu ka soo shaqeynaynay Siinley haddaan u nimaadno waxa sheegteen ama anigu baan ogahay in siday ku soo baxday la helay ragii ay ka bilaabantay curiyay oo ka wareysateen oo recordingkii ama cajaladii ay yaalay ujeedada markaa waxaan ka filan nimanka curiyay waxaanu inagu tirin karnaa waa heesihii iyo ragii ka qayb galay iyo balni walba ujeedadu kala haa marka kulleeyda waxa ma kana sheekadu waxay ka bilaabantay baa leeyahay Cabdi Qays oo tiriyay
ها akhri xagee naga akhri xagga naga xigta waxaan ka bilaabi doonaba wayta marka bal riiraash baa imka nagala jooga odayaasha ka qayb galay wayta waxaan oo yaraftiimiyasna صدق سنوات بعد إنه يدي كهذا هو شيء وين wayta ninkii la oran jiray hadraawi waa kii ka warramay waa kii ma garanaysaa inoo sheegay sida ay yara siriqda ay u bilaabantay baash maansada dhamise u bilaabantay kolkaa bilowgii isagaynu ku daynayna sida u bilaabantay laakiin aan waxa sheegayoon yani inay sida u saamaysay suugaantii ka dambeysay ma garanaysaa in jiibtadu ay hiri karto oo waa wixii silsiladaas ay soo kordhisay waxay soo kordhisay in jiibtadii ay noqoto god يعني قبيجي سوق كسارة ومقارنة نكى وحتري يابا وجيب صداقة صوّي كذي بيرايدو ويكقابنا يدو وين كدق دق مني إلا ما أنت واحد نكون سيرتير جاي نكون داوني سيرتير جاي نكون داوني تحمل نكون داوني ده اللي يراد أنتوا هذا بدن وحوي وجيب صدا فقط توجوين السوق اللي شرطه وجيب صدي ويرجلسي طلبات سوقات أول واحد كحناي لبا قلاي كحناي mid waxay qoladii riwaayadaha iyo magaranaysa iyo heesaha midna waxay ahayd gabayga classic ahaa ee reer baadiyaha waxaan ka saaray oo qoladii siinlay hore hooyaaleedu naga bilaabay qoladii siinlay dariiq dhaxan soo saaray oo ah inaanu iskuuladii iyo macallimiintii iyo magaranaysa wixiiba soo gelina suugaantan online cusub ay u jeexdo siinlaydu oo tan imika dhalinyaradii oo dhamay halkii dariiqan ay arrimaha soo kordhisay waxa kamid ah leedahay riiraash rag mutacalimiina sida hadraawi oo kale iyo rag mutacalimiinta gaariye mutacalimiinta waa hore la boodi jiro gabaygan iyo waxa inay tiriyaan dad iska badow iyo soo galeen baa la arkay inuu wuxuu cilmiya inuu wixii la cilmeyn karo deetana qaybtii iskuuladii iyo tacliintiina ka qayb galan af Soomaaliga la qorayna qayb weyn buu ka qaatay waxa weeyaan kulkii horeysa waxa lagu faafiyay waxa ay ahayd qoraal wax qoraal yani lagu faafiyo ku hirgal qoraal waxa uu horeeyay siinleyda inkastoo cajalada kulkii hore ku qabanay oo aniga gaariga cajaladii horeysa ku qabanay hargeysa anagu joogna oo tii dhulkay soo wada gaadhay gidigin haddana qoraalka ka muhiimsanaa oo magaranaysa inta sense lagu rogo ayaa loo qaymi jiray dadka oo taaqulada qayb weyn bay ka qaadatay halka imika ilaa halkaasaan aanu kaga bixiyay riiraash loo ka bixin dawladii oo waqtiga ka shakiday baa leeyahay qolka bal ka waran arrintaas wuxuu ii sheegay imika oo jaamac Umar Ciise inala joogo oo barnaamijyada darwiishka aanu ka qabanay wuxuu guddi baa naloo saaray buu yiri oo la yiri bal waxan ka soo taliya waxa gudoomiye looga dhigay Sheekh Xariir Allah naxariistay ninkii loo jireysna nin xaakimana waa la raaciyay buu waxa la yiri bal hadii meesha dambi laga helo si ragaad marqooga loo cabo wuxuu ilaa kolka wax nirbuul meeshan siyaasadii way ku jirtaa ya hadii wax la tabanayna wuxuu hal hagaajiyay leeyihiin waxa xumaani kuma jirto laakiin kulli siyaasadii ku jirtaa siyaasadii way ku jirtaa laakiin wax sarbeemanta kolka nimanka ayaa waxba loo raacin waxa ay sheegayaan hal hagaajiyaan anagu nirbuul awjaa la joogay marka inkastoo riiraash oo tahay maanta tahay qofka kaliya ee arrintaas sidii halkan joogay aad uga warrami kara sida ay u taxanayd silsilad Yuusuf silsilada horta waxaa ka qayb galay ilaa dhowr iyo 10 nin tiraba iyo gabadhu reer Djibouti caasho jaamac diiriye waxay walaalahaayeen aamino oo maanta inala joogtay ay walaalahaayeen Allah ya raxmay dhawaan bay dhimatay ayaan xariistaha reer Djibouti iyadoo ahayd caasho markaas reer Djibouti gabadha kaliya ka qayb gashay runtii gabay aad u wanaagsan oo aad u heer sareeyana way kaga qayb gashay waa xagga ugu dambeeyay ku gaari doonaa gabagabada qaybaha dambe ugu tagi doonaa waqtiga sheekaan soo marka bahashu waxay uun miisaankeedu ahaa Djibouti iyo Xamar burcana waxa joogay gaariye riiraashna waxa joogay Hargeysa laakiin miisaanku waxay ahayd uun حمر iyo waliba jaamacadii la foolay jaamacadii la foolay hadraawi iyo Saciid Saalax iyo